madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa caalamka u cadeeyay in mowqifka ku aadan kiiska badda uu yahay kaliya in lagu kala baxo go'aanka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa daha furay dib u howlgelinta wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed. mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha qorsheynta iyo maaliyadda ee Soomaaliya ayaa dalka Norway uga qayb galay aqoon wadaarsi ku saabsan diiwaangelinta ganacsiga kaas oo la xiriiray qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka. wararka dibaddana waxaa ka mid ah doorashooyinka guud ee madaxtinimada dalka Afghanistan ayaa hal maalin oo qura ay ka harsantahay iyadoo laga cabsi qabo in dalkaasi weeraro ay hareeyaan. وهاجاك داود الانتاس waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka habeenimo SNTV markana u diyaar garooba warkii oo dhan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caalamka u cadeeyay mowqifka dowladda Soomaaliya ku aadan kiiska badda. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go'aan geesinimo la qaatay markii khudbadiisa uu ka horjeedinayay shirka golaha guud ee loo dhan yahay qaramada midoobay oo kii 74aad isagoo ka hadlay uu ku xusay in Soomaaliya ay ku kalsoon tahay kaliya go'aanka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ oo hadda kiiska badda uu hor yaalo. wuxuuna madaxweynuhu intaa ku daray in Soomaaliya aanay marnaba gorgortan ka geli doonin arrimaha badda. Soomaaliya maadaama ay tahay xubin ka tirsan qaramada midoobay ayna qayb ka tahay una hoggaansan tahay sharciga maxkamadda waxaa ka go'an inay ka dhur sugto dhammaadka hanaanka xalka garsoorka. Soomaaliya waxa ay ballan qaaday inay u hoggaansami doonto xukunka kama dambaysta ah ee maxkamadda iyo in ay aqbasho xadka ay maxkamaddu jaangoyso maadaama arrintu tahay mid la xiriirta sharciga caalamiga ah. xukunka maxkamaddu waxa uu sidoo kale qabanayaa Kenya. waxaynu ku kalsoonahay in marka xukunka la soo saaro isla markaana la jaangooyo xuduudda in xal waara loo heli doono khilaafka muddada dheer soo jiitamayay. waxaa intaasi dheer in 3 Sebteembar 2019 golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee midowga Afrika ay cadeeyeen in midowgu aanu awood u lahayn in uu farageliyo kiiska oo hadda hor yaala maxkamadda caalamiga ah. mudane madaxweyne waxaan sidoo kale jeclahay inaan idinla wadaago in habeenkii talaadada 24 Sebteembar 2019 madaxweynaha Masar mudane Sisi oo sidoo kale ah gudoomiyaha midowga Afrika ee hadda uu soo qaban qaadiyay isla markaana shir gudoomiyay kulan barbar socday shirweynaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacay New York oo u dhaxeeyay aniga iyo madaxweynaha Kenya ee Uhuru. kulanka oo ahaa mid miro dhal ah waxaa la isku raacay in dib loo soo celiyo xiriirkii walaalnimo ee wanaagsanaa iyo in la xoojiyo iskaashiga diblomaasiyadeed iyo midka siyaasadeed. waxaa intaasi dheer inaan isku afgarannay in khilaafka badda ee u dhaxeeya labada dal loo daayo maxkamadda caalamiga ah si ay u xalliso. Soomaaliya waxaa ka go'an inay xiriir fiican la lahaato Kenya iyo dhammaan dalalka kale ee gobolka. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa daha furay dib u howlgelinta wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed sida warkan uu inoogu hayo wariyaheena Axmed Cumar Axmed. munaasabad lagu daafurayay wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, wasiirka warfaafinta Soomaaliya, wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha, wasiirka cadaaladda, xeeralyaha guud ee qaranka, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, taliyaal ciidan, gudoomiyaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida, xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir iyo ganacsato. inta ay munaasabada socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay muhiimadda ay u leedahay dalka wakaaladda horumarinta qaranka dhismaha Soomaaliyeed oo ka mid ahayd hay-adihii ku burburay dagaaladii sokeeyay. maareeyaha wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed Sarreey Guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sheegay in uu hiigsanayo qorshayaal lagu dhisayo xarumaha ciidanka iyo wadooyinka magaalada Muqdisho. jeedooyinka ama waxa aan ku talaabsan doono insha Allah waa waxaan soo bandhignay oo ah meelo badan oo midba kale ka xanuun badan tahay midba kale ka burbur badan tahay laakiin waxaan ku soo koobnay 8 qodob oo hadda aan soo sheegnay oo ah muxuu ahaa kaabayaashii dhaqaalaha
muxuu ahaa hay-adihii cadaaladda hay-adihii amniga iyo difaaca dalka hay-adihii cadaaladda iyo garsoorka caafimaadkii waxbarashadii muxuu ahaa iyo dhammaan hay-aadkii noocaasoo bilicdii iyo taariikhdii dalka sidii loo soo celin lahaa. wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dawladda dhismooyin ay ka wado dalka taas oo qayb ka ah aragtida madaxda dalka in dib loo dhiso dalkeennii aynu gacmahayna ku duwinay bal horta wejiga magaalooyinka qurxino wejiga laamiyada qurxino wejiga dugsiyada qurxino markaa kadib haddana kuwa cusub dhisno horumarina marka dawladdu waad ogtihiin oo hore way u bilowday meelo badan oo dalka ka mid ah oo waaweyn ayaa maanta dhisme dadka Soomaaliyeed isku tashaday ay ka socdaan oo ka mid yahay tiyaatarka qaranka iyo madxafka iyo maktabadda iyo stadium Muqdisho iyo meelo badan oo saas. wasiirka cadaaladda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in wakaaladda faa'iido ay u tahay xarumaha hay'adaha dawladda. wakaaladan waxay faa'iido u tahay shaqadeeda waxay noqonaysaa inay hay'ooyinka dawladda dhan ay ka shaqeyso sidii hadda uu sheegay bahda garsoorka iyo bahda kale oo amniga iyo bahda kale oo tacliintu noogu sheegay waa wasaarooyinkii kulliya loo baahan yahay in dib loo dhiso qaar hadda waa dudumi rabaan in dib loo qiimeeyo oo loo dhiso loo baahan yahay. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude ayaa daafuray wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed isagoo sheegay in loo baahan yahay in dalka dhismooyin laga sameeyo. Bashiir Maxamed Jaamac aawo oo taariikhdu ay tahay 26 waxaan daafuray wakaaladii horumarinta dhismaha Soomaaliyeed waa daafuran tahay saau daafurnay adigana waxaan ka rajaynaynaa wax qabad wanaagsan waan mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhawaan xilka maareeyaha wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed u magacaabay Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac waxaana la rajaynayaa in howlihii wakaaladda ay dhab u bilowdaan dhawaan. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta ee Soomaaliya ayaa dalka Norway loogu qabtay aqoon iswadaarsi ku saabsan diiwaangelinta ganacsiga. warkana waxaa Oslo Norway nooga soo diray wariyaheena Xasan Saciid Rasta. kulan kala warqaadasho iyo isbarasho oo dhex maray jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Oslo iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha qorsheynta qaranka iyo maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Oslo. xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo mas'uuliyiinta kale ayaa booqashadoodan ay ku yimaadeen Norway ku saabsaneyd casuumad ay ka heleen xarunta dhexe ee cilmi baarista qaranka ee Norway taasi oo ahayd sida ay Norway u sameeyaan diiwaangelinta ganacsiga iyo si guud istaatistikada la xiriirta qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka. kulankan oo soo abaabuleen ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Norway ayaa ugu horeyn waxaa daafuray Cabdi Fataax Neero iyo Adam Royal oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Norway. soo dhawaada waa mahadsantihiin casuumaadda aad naga aqbasheen waqtiga cariiriya oo xilli degdeg ah la casuumay. walaalahii dhammaan Soomaali ka timaadana waa soo dhaweyneynaa. barnaamijkan bilaabaneynaa waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Cabdi Fataax Neero. mudane Ali Marweyn iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan caawa aynu ugu talagalnay in aan uga hadalno qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka. waa bandhig nooga yimid dhanka wasaaradda qorsheynta maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee waddanka Ministry of Planning. sidaad ogtihiinba sabtidii hadii la soo dhaafay waxaa magaalada soo gaaray wafdi ballaaran oo Soomaaliya ka socda dawladda Soomaaliya ka socda kuwaasoo u yimid dalka Norway si ay uga qaataan tababar la xiriira dhanka statistikada iyo dhaqaalaha labada dhinac iyo wada shaqeyn ka dhaxaysa dawladda Norway iyo dawladda Soomaaliya.
barnaamijka ayada ah waxaa daadihinayay Statistics Central Bureau SSB cabdulqaadir maxamed aadan cabdul xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta ayaa mahadcelin kadib u sheegay jaaliyadda in qorshahan qaran uu socon doono 5 sano oo soo socota looguna talagalay guud ahaan Soomaalida meel kastoo ay joogaan jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Oslo ay yihiin kuwii ugu horeeyay qurba joog ee loo soo bandhigo qorshahan waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo inaad waqtigiina soo horteen halka timaadeen waxaan noocaad runtii dadkii aan raadinaynay oon rabnay inay noo imaadeen intii gacanta naga siisay in intaan oo miskaxdii iyo tayri dadka Soomaaliyeed oo magaaladan joogay inay noo keenaan runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa intaas haddaan ka gudbo shaqo kale aan nimid maadaama aan halkaan nimid wasiirka isla hadalay salaan guud horta waa idinkaga wadaa wasiirka wasaaradda qorsheynta marka labaad waxaan qorsheynaynay in qorshahan qaranka maadaama ay Soomaali leedahay 5 sano uu socon doono haddaan Ilaahay ma idin hirgelintiisa marka dalka gudihiisa wada tashada laga soo sameeyay dibaddana maadaama ay dad xoog leh oo Soomaali ah oo miskax iyo maal iyo muruq wala maqan ay jiraan in ayagana loo soo gudbiyo Norway waa dalkii ugu horeeyay oo qorshuhu soo gaaray oo wada tashiga u imaaday waxaa jiray waqtiyo badan oo naxariiriyay laakiinse halkaan fursad bayno inaan kugu nimaado ujeedku markii waxa weeye qorshihii wada tashiyo badan baa la geliyay wareegyo fara badan buu soo maray nuxur baa ka soo baxay ahmiyadaha ka soo baxay in ahmiyadahaasna ay idin soo bandhigno hadda maanta waxa fariistay golihii wasiirada way indoos gareeyeen waa preliminary laakiinse wuxuu noqon doonaa qorshe sii jira oo si toos ah loo update gareeyo hadda wax loogu daro oo wixii ahmiyadu sax ah lagu daro sidaas awgeed goor dambe idinma soo gaarin xasan saciid raasta raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed Oslo Norway xuska maalinta caalamiga ee dalxiiska ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wariyaheena Cabdullaahi Amiin Qorshe ayaa ka waramaya 27-ka bishan September ayaa ah maalin u asteysan dalxiiska adduunka Soomaaliya ayaa sanadkii 2017 ku biirtay ururka dalxiiska adduunka ee hoostaga qaramada midoobay waxaana maanta looga dabaaldegayaa maalinta dalxiiska adduunka beerta nabadda oo kamid ah goobaha loo dalxiis tago ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayay oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdirasaaq Cabdullaahi agaasimaha dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta ayaa ka hadlay qabsoomidda munaasabadan dhalinyaro intaan la eg oo ku dalxiisi karto magaalada Muqdisho ee magaaladii ay ku dhasheen ah 27 September maalin walba sanad walba waxay ku aadantaa maalinta dalxiiska adduunka hadda kadib waxaan ku tashan doontaan inaan xaflado kuwan ka weyn inaan idin soo qaban qaabin doono anagoo ku hadlayno magaca wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska gaar ahaan waaxda dalxiiska Maxamed Abuukar Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka midowga duulimaadyada iyo dalxiiska Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda dalxiiska dalkeena waxaan rabnaa dalxiiska dadka markii loo sheego waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay maskaxdooda si kale u fikirto dalxiiska waa jiraa waa intaan iyo in lamida sida lamida waxaan rabnaa annaga maadaama aan nahay sectionkii diyaaradaha inaan bilaabno dalkeena waa ballaaran yahay qaybtii dalxiiska oo dalka gudihiisa inaan bilaabno ilaahiida waxaan rabnaa dalkeena Hargeysa jirta Buntland jirta Kismaayo jirta meelo badan oo ugu dalxiisay leeyihiin dhamaantood oo gobolada dalka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala ayaa munaasabada ka sheegay in Soomaaliya ay xilligan leedahay saaxiibo iskaashi dalxiis oo kala dhaxeeyo in Soomaaliya ay dib ugu soo noqotay saaxada dalxiiska ee adduunka oo waqti 30 sano ku dhawaan ka maqneen waxaad ogtihiin sanadkii 2017 in markii ugu horeysay aan ku beernay ururka dalxiiska adduunka ee hoostaga qaramada midoobay in sidoo kaleeto wadamo badan aan dib ula soo ceshanay iskaashigii iyo wada shaqayntii dhanka dalxiiska waqti dhow waaxda dalxiiska ee wasaaraddu maalmo ka hor waxay soo saartay broshuurkii ugu horeeyey muxuu ahaa muujinaya astaamaha dalxiis ee Soomaaliya ay leedahay dalxiiska ayaa wuxuu ka mid yahay ilaha dhaqaale ee dunida hadda ka jira Soomaaliya ayaana leh dhul baaxad weyn oo ku habboon dalxiiska waxaana wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ay wada qorshayaal looga faa'iideysanayo goobaha dalxiiska ee dalkeenu leeyahay Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho
jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa halkaasi ku soo dhaweeyay halyeeyga weyn Cabdi Bilac Cabdi si uu dhalinyarada Soomaaliyeed degan gobolka Minnesota tababaro ugu siiyo dhanka ciyaaraha fudud. Wariyaheena Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warka nooga soo diray Minneapolis. xafladan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay halyeey qaran Cabdi Bilac Cabdi oo soo diga rogtay gobolka ay Soomaalidu u badan tahay ee Minnesota si uu u tababaro ilmaha Soomaaliyeed iyadoo ay si wada jir ah u soo wada qabanqaabiyeen kulan sharafeedka xafiiska duqa magaalada Minneapolis mudane Jacob Fry iyo hay'adda Lobit Foundation oo u dhaqaaqda arrimaha ciyaaraha fudud ayaa lagu qabtay xarunta dadweynaha ee Brian Cole ee ku taala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. waxaana xafladiisa ka soo qayb galay siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen xildhibaan Maxamuud Nuur duqa magaalada Minneapolis mudane Jacob Fry gudoomiyaha degmada lixaad mudane Cabdi Warsame gudoonka waxbarashada magaalada Minneapolis mudane Siyaad Cali qaar ka mid ah bahda sportiga iyo marti sharaf gale. Cabdi Warsame ayaa u mahadceliyay duqa magaalada Minneapolis iyo hay'adda Lobit Foundation sida ay ugu istaageen jihaynta ilmaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota. waxaan u nimid shir oo ka dhacay xarunta Brian Coyle shirkaas oo lagu dahfurayay program cusub oo Cabdi Bilac Cabdi uu leeyahay iyo the Lopit Foundation oo tababari doonto dhalinyarada degan magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesota siday u ordaan uga faa'iideystaan sportska sida taqaaniina Jacob Fry ka hirgeliyay programkaas aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay mudane Jacob Fry oo wajigiisa laga dheehan karay sida ugu faraxsan yahay inuu Cabdi Bilac u soo wareego gobolka Minnesota ayaa yiri. Thank you, Council Member Abdi Warsame, and we are so honored to have Abdi Bile, the world champion, here in Minneapolis. This is an individual that I knew when I was just a young kid about 9 or 10 years old in Northern Virginia as Abdi Bile went to college at George Mason University right down the road, and to have him hadda waxay kaloo ii tahay waayo aan u soo joogay inuu noo soo wareego si uu ilmaha ugu fududeeyo runtii waan ku faraxsanahay. agaasimaha guddiga fulinta hay'adda Lobit Foundation mudane John Munger ayaa ka sheekeeyay waqtiyada ay soo martay Lobit Foundation. Gita and UCare have been supporting the Lobit Foundation's work. Lobit Foundation waxay shaqaysay sanado badan way adag tahay in haddana lagu noqdo laakiin UCare wayna caawintaa waxayna diyaar u tahay inay naga caawiso ayna waqti kasta jaaliyadda Soomaaliyeed garab istaagto waxayna na weydiisaa mar kasta garoomada aan ku kulanno. They care very deeply about a community they work a lot with, which is the Somali community. waxaa kaloo halkaasi ka hadlay ku-xigeenka arrimaha bulshada ee hay'adda caymiska UCare Marwa Getawe. We are so excited to be here today. It's the first time I got to meet Abdi. And Abdi has agreed, and I want all of you in here to record this, that he is going to get trained with me on how to cross-country ski with the kids. So, yes. Our CEO Mark Trainer back there, wave Mark. doonka waxbarashada magaalada Minneapolis mudane Siyaad Cali ayaa ka mid ahaa dadkii soo dhaweeyay mudane Cabdi Bilac Cabdi wuxuuna sheegay inuu ilmaha Soomaaliyeed uu mustaqbal fiican u ifay. waxaan rajaynaynaa inuu Cabdi Bile arday fara badan dhalinyaro fara badan inuu tababaro kuwaas oo runtii aan isleenahay mustaqbal fiican bay ku yeelan doonaan sportska. halyeey qaran Cabdi Bilac Cabdi ayaa durba wuxuu guda galay shaqadiisii isagoo booqday iskuulka Ubax Academy wuxuuna ilmo badan oo Soomaali ah ka codsaday inay ordaan waxaana goobtaasi ka hadlay maamulaha iskuulka Ubax Academy mudane Muuse Faarax. waxaa sharafa oo aan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweynay maanta Cabdi Bilac Cabdi Ubax soo siyaartay oo isku dayayo inuu dhalinyaro ka abuuro ama ka sameeyo dhexdooda sidii uu isagu u noqday champion kuwa u noqda. qayb guddoomiyaha ayaa waxa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed la hadlay mudane Cabdi Bilac Cabdi waxaana weydiiyay barnaamijkan iyo sida uu u hirgeli doono. runtii rajadu way wanaagsan tahay iminka waxaanu ku jirnaa u diyaar garowgii iyo isla shaqayntii iyo in dadkii horta la wacyi geliyo in la isla fahmo in waalidiintii fahmaan in dhalinyaradii laga dhaadhiciyo sidii runtii wax walba successku guushu waxay ku xidhan tahay sidii la isula jaan qaado sidii la isula qaato laakiin rajo badan baan qabaa oo desaaka waxaad arkaysay adigoo halkan taagan markaan iri gacmaha taaga inta rabta programka inay ka qayb qaadato in badan inay gabcaha taageen oo diyaar u yihiin de markaa dadaal un baa naga xiga
alxamdulilah waxaan rajaynaynaa inay guule ka soo baxdo dakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka maamulada degmooyinka kaaraan iyo yaaqshid ayaa olol nadaafadeed si wadajir uga sameeyay isgoyska fagax ee magaalada muqdisho arrintaasina waxay qayb ka tahay barnaamijka isxilqaan riyaayga aamine xaaji xuseen ayaa ka waramaysa ololahani nadaafadeed oo iska kaashanayeen degmooyinka yaaqshid iyo kaaraan ayaa laga fuliyey wadada dheer ee fagax ee isku xirta degmooyinka yaaqshid kaaraan iyo hilwaa oo xirneed muddo ku dhowaad 1 sano ah wadadaani oo muhiimka u ahayd isku socodka dadka iyo gaadiidka dadweynaha ee saddexdaasi degmo ayaa waxa ay u xirneed biyo iyo qashin buuxiyay wadada dhexdeed waxayna mas'uuliyiinta degmooyinka kaaraan iyo yaaqshid ay bilaabeen in ay dib u furaan wadadaasi gudoomiyaha haweenka degmada kaaraan suldaano axmed maxamed oo ka hadlaysay ololahan nadaafadeed ee laga fuliyay wadadaasi fagax ayaa sheegtay in markasta haweenka ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada biyadega shaqaa laga wadaa isxilqaana ka socdo waa arkaysaa gabdhihii reer kaaraan gudoomiye waa arkaysaa cagafkuu saaran yahay shaqadu way socotaa waxaan leenahay dalkaaga dhiso dalkaaga nadiifso nadaafadda waa iimaanka nuskiis isxilqaanka oo ku dhawaaqay madaxweynaha ayaan ayidsanahay ayaan daba soconaa gudoomiyaha degmada yaaqshid muuse keese jimcaale iyo gudoomiyaha degmada kaaraan abshir maxamed maxamuud abshir kaaraan ayaa waxa ay ka codsadeen shacabka iyo ganacsatada degmooyinka kaaraan iyo yaaqshid in ay kala shaqeeyaan hagaajinta wadooyinka dhexmara degmooyinkaasi waa isxilqaan oo ah qof walba adiga madaxaaga meelaxda ku soo xiro waxaan is leeyahay bulshada degan kaaraan iyo yaaqshid wax u wanaagsan ma jiraan wadadan waxay xiriirnadaan maleynaa muddo ku dhow sanad iyo samti waxay u xiriirnadaan wax macna weyn oo saas u sii badan maahan waqtiga la gelilayay iyo biyo fariisiska ay noqotay ka soo bilaaw ilaa sanca ilaa iyo muxuu ahay hotel ramadaan waa aragteen biyo fariisay noqotay waxaan leeyahay bulshada degan labada degmaba inaan isu bahaysano isugu tagno laamigaas iyo wadadaasna aan dhisano waa dhisi karnaa intaas waxaan leeyahay waa qof walba garashadeeda iyo garaadkeeda intuu ilaahay siiyey CC waa aragteen markay biyaha fadhiisanayaan waxaan leeyahay siyaasiyiinta iyo ganacsatada iyo aqoon-yahamiintaba iyo bulshada degan degmada yaaqshid degmada kaaraan war wadadan inta isugu tagno waa dhisi karnaa garabkiina Allah galana soo garab istaaga meeshii biyadega ama wartii in fagax ayaanu shaqo ka qabanay oo muddo dheer aan la marinin waxaan rajaynaynaa in ay yani biri ama wixii ka dambeeya la maro waxa kale in sidaa la socotaan dad dalkan cid u maqan oo yani lagu halaynayo inay wax ka qabato ma jirto annaga inaan wax ka qabanno ay tahay waxaa la rabaa guud ahaan shacabka degan labada degmo yaaqshid iyo kaaraanba inay ku talagalaan inay u taalo iyada shaqadan iyaga ay u taalo kuwa aqoon-yahanada ah ee u dhashay deegaanadaasna waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliya Muqdisho odayaasha dhaqanka deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay ugu baaqeen maamulka cusub ee dhawaan halkaasi loo magacaabay inuu arrimaha amniga mudnaan siiyo iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab wariyeen Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa faafahinta warkan inoo haya gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhawaan gudoomiye u magacaabay deegaanka Janaale waxa uu sheegay in gudoomiye Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala dhawaan ay howlgallada lagu sifeynay al-shabaab ka bilaaban doonaan si la mid ah howlgallada guud ee ka socda gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ay u diyaarsan yihiin in culayska haysta shacabka Soomaaliyeed ka qaadaan waxaan qaatay waanada soo jeediseen ma naqan doono nin idinka talaabsado tala haddii wareertan idinka ugu soo noqon doona meesha aan talada ka qaadan doonan odayaasha dhaqanka noqon doonaan mana idin iloobi dooni waan wada shaqeynaynaa waxaan u wada shaqeynaynaa si waafaqsan maamulkuna wuxuu noqon doonaa maamul talwada ku dhisan qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ka soo jeeda deegaanka ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub waxaana sidoo kale ay sheegeen in looga baahan yahay in wax qabad muuqdo ula yimaado si xal looga helo xoreynta deegaanka Janaale oo kamid ah deegaanada al-shabaab ay ku dhibaateeyaan shacabka waxaan leenahay dalka iyo dadka waxay u baahan yihiin nabad dalka iyo dadka waxay u baahan yihiin wada shaqayn dhab ah dowladda dhexe Soomaaliya haddii ay tahay iyo haddii ay tahay dowladda koonfur galbeed haddii ay tahay
iyo shacbiyadda gobolka shabeellaha hoose khaasatan degmada marka iyo nawaaxigeeda iyo deegaanka ama degmada janaali iyo nawaaxigeedaba taageero af iyo idin ah idinka baahan yahay. kulankeena sharafta leh wuxuu ku saabsan yahay hambalyada gudoomiyaha degmada janaale hambalyadaana waxaa diraayo odayaasha dhaqanka aad iyo aad waxaan u mahad celiyeynaa suldaankii ka soo shaqeeyey iyo madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen iyo intii macnaha magacaabinta gudoomiyaha gobolka iyo intii ka dambeysay. cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho. qoysas ay soo barakiciyeen abaaraha ka jira gobolka Gado isla markaana ku nool magaalada Baardheere ayaa la soo warinayaa in halkaasi dhibaatooyin dhinaca nolosha ay ku haystaan waxaana codsadeen in loo soo gargaaro. Cumar Idriis Axmed wariyahana ayaa warbixinta nooga soo diray Baardheere. halkan waa xerada barakacayaasha habaalcadey ee duleedka bari ee magaalada Baardheere ee gobolka Gado ay ku soo barakaceen boqolaal danyar oo ka soo barakacay abaaraha iyo duqeymaha ka soconayo qaybo ka mid ah gobolka Gado iyo deegaano kale. waxaa halkan ku haysta qoysaskan duruufo kala duwan oo ugu daran yihiin cunno la'aan, hoy la'aan iyo sidoo kale caafimaad darro, iyadoona dhanka kale ay ka cabanayaan waxbarasho la'aan haysta carruurtooda. qaar ka mid ah qoysaskan oo aan waraysanay ayaa inoo xaqiijiyay inay soo barkaciyeen duqeymaha aan loogu nahayn ee Kenya ka wado deegaanada Faafxadhuun, Cawsqurun, Dalsan iyo deegaano kale oo ka mid ah isla gobolkan Gado oo ay ku waxyeeloobeen dadka dunyada iyo sidoo kale shirkadihii isgaarsiinta ay isticmaali jireen iyo abaaraha ka dilaacay deegaanada qaar. deegaanka gobolka Gado gaar ahaan Daar Salaam iyo Faafxadhuun iyo Buusaar iyo deegaano badan oo hoos yimaada dadkaas oo gaaray ilaa 3,400 oo qoys. waxaa kala oo aan 200 oo kiiloomitir bayna kaga beegantay dhinaca Kenya xaggeeda Baardheere iyo Cawsqurun iyo deegaamada hoos yimaada. marka 200 oo kiiloomitir bay Baardheere ka jiraan ilaa 4,300 oo qoys baan lug soo galay Baardheere. dhibaatada ugu weyn waxaa ka mid ah oo dalkaas haysato iyadoo abaaraha ay haystaan laakiin la iska joogo oo dibadaha iyo dalkaba dadka ee fiisiil isticmaalo lacagaha la soo tuuro. waxaa warisgaarsiinta shirkadda warisgaarsiinta ee Kenya jirtay ilaa 7 ilaa 12 anteena bay jirtay dawladda. xoolaha ka soo barakacay xoolo la'aan oo soo barakacay dhulka cabitaan hay dhulkii wax abaar oo ka baxeen waa iska soo baxan inta iska amaan muslimka iska dhaxgal abaartiina haysa wariib nama deyn muslimka maxay soo barkacay markaa diyaari oo korkayna ku wareeganay oo joqayna aan soo barakacay shay Kenya oo kala yiraahdo oo surun iyo Dar Salaam Jibayo el Ram meelahaas kala gidisay ka soo baxeen dad dhibaato adag ayaa soo gaartay sababtoo ah waxay isticmaali jireen anteeno biyo ayaa loo geyn jiray meelaha oo yacni go'doomada ah ee raashin bay ka heli jireen saa aawadeed markay waayeen anteenadii lacagahii wixii la tuuri jiray iyo maxallaha akoonka loogu soo diray FCC waxyaabihii magaalada ay yacni ay ugu taxnaayeen markay waayeen kadib waxaa u soo baxday baahi iyo dhibaato adag saas aawadeed waxay ku soo qaxeen degmada Tani Baardheere. dhowr meelood ayaa duqeymaha loo geystay taas oo ah Daar Salaam iyo Iisheegada iyo Cawsqurun, Bivayo iyo Iisheegada Kukuma dhowr meelood kala gedisan waaye sida maxaan ku idhaahdaa Dalsan. isgaarsiintii ay ka heli jireen macnaha Iisheegada gargaar sida oo yacni walaalahood oo magaalada jooga sida ay lacagaha ay ugu tuuri jireen oo dhaqaale ay ka heli jireen waa la burburiyay xoolihii waa laga duqeeyay maxaan ku idhaahdaa dhibaato fara badan ayaa loo geystay. nin waxaad arkaysaa xoogaa xeen ay meesha ugu dhaqnay tira nooca maxaa lahayd 100 oo kale oo intaas beer ay u ahayd intiba hal gantaal ama 2 gantaal oo kale ay ka haleeleen. Baardheere waxay u jiraan 200 oo kiiloomitir bay u jiraan. iyo maxay ahayd iyo waqtiga dadka beeraha beeran jireen abaar dadka xoolahana way ka dhamaadeen waa waxaan ka soo barakacnay faafadhin Buusaar Cawsqurun Kurtun Daar Salaam. Cumar Idriis Axmed warbaahinta qaranka
deegaanka xabaalcadde ee duleedka bari ee magaalada baardhede ee gobolka Gado. magaalada London ee caasimada Britain xarun dugsi quraan oo koox cunsuriyiin 6 sano ka hor ay gubeen ayaa dib loo furay. Riyana Yusuf Ibrahim Garabe ayaana warkan naga soo diray London. xaruntan oo maanta dib loo daahfuray ayaa waxaa ka soo qayb galay madax fara badan oo ka kala socotay dawladaha Soomaaliya iyo Ingiriiska iyadoo ay qayb ka ahaayeen madaxda booliska ee xaafadda Brent taasoo lagu qabtay magaalada London. xaruntan ayaa waxa ay ahayd mid 5 Juun ee sanadii 2013 ay koox argagixiso islaamka neceb ay dab qabadsiiyeen waxaana lagu magacaabi jiray dugsiga Ar-Raxma isla markaana ahayd mid caruurta Soomaaliyeed lagu bari jiray Quraanka Kariimka ah. sidoo kale munaasabadan daahfurka ah ee loo sameeyay dhismaha cusub ee dugsiga Ar-Raxma ayaa waxa ka soo qayb galay culimaa u diin Soomaaliyeed oo ka kala yimid wadamada caalamka waxaana kamid ahaa Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi iyo culimaa u diin kale. dhismaha xaruntan dib loogu dhisayay ayaa waxa uu qaatay muddo 6 sano ah waxaana si guud uga qayb qaatay dhismaheeda jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada London iyo dawladda Ingiriiska. Assalamu alaikum. Welcome to the opening center Madrasatul Rahma. caawa farxadda weyn meeshaan kulankeena farxadda weyn lagu farxay waxaana noo furay bacda mudda oo dheer in meeshaan laga xiray laga gubay caawana insha allahu tacaala meesha waa noo furay. anigoo ku hadlaya magaca qurba joogta Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah waxaan hambalyeynaya runtii waxqabadkii ay sameeyeen community-ga Somali Baravanese community aad baan ugu hambalyeynaya. waa runtii waxay ahayd munaasabad qaali ah oo cadaan iyo madowba la isugu yimid muslim iyo gaalaba la isugu yimid. walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay galabta ka soo qaybgalka aan ka soo qayb galay iftitaaxa ama furitaanka markaskan ama madrasatu Ar-Raxma oo halka kan London ku taala ama laga furay iyadoo taariikhdeedaba saan la soconno hadda ka horna aan horay u maqalay in dadkan oo muctadiinta ah maaragtay cunsuriyiinta ay gubeen kadibna ilaahay subxaanahu watacaala u sahlay in ay markaska weyn qiimaha leh ee aad u qurux badan ee aad loo hagaajiyey ilaahay uu ugu bedelay وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وإلهي waxaan ka rajaynaynaa Soomaali ilaahay inuu najiyo Soomaali barwaaqo ilaahay ka dhigo dadkii dhammaan qalbigooda iimaan iyo sabar ilaahay siiyo wixii dhibaatada runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay caawa furitaankan jaaliyada la furay. runtii jaaliyadii muddo badan ay dhibaato ku jireen 6 sano dhismaha socotay alxamdulillah caawa la furay. waxaan aad ugu faraxsanahay culimada diinta Soomaaliyeed gaar ahaan Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi halka ka soo qayb galay oo ka yimid taariikh Qatar soo arintan uga furo iyo culimada Sheekh Cabdulxakiim Sheekh Cali Suufi also iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel ka soo joogaan iyo sanadkeena Soomaaliyeed halka joogto timid ay ka timid madaxda anoo ku hadlayo magaca labada gole ee aqalka sare golaha shacabka runtii inaan maaragtay xafladan ka soo qayb galo anigoon Senator Naciim Ibraahim Yuusuf aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana muhiim community-gan in badan oo maaragtay wax ka qabtay ilma maanta ee jaamacada dhiganaya ayaa quraanka loogu bilaabay waqti loo baahan yahay la furay alxamdulillah wax badan waa laga soo faa'iiday inkastoo dhibaato dhacday oo community-ga maaragtay dhibaato ku dhacdo mise laga gubay community-ga laakiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dawladda Ingiriiska oo aad u gacan qabatay u habeysay dib ugu dhistay runtii maantana ay noqotay maalintii ugu farxadda badan leh ee ka soo qayb galeen madaxda dalka Ingiriiska qayb ka mid ah sida wasiiro iyo xildhibaano deegaanka iyo federaalka wadaba intaba runtii aad iyo aad ay farxad gelinaysaa horena waqti loo baahnaa la furo wax loo qabto carruurta hadaltan waxaan aaminsanahay in wax qabadka uu maaragtay dib u soo noqonayo waxaan u rajaynayaa insha Allah biidnillah inuu noqoto meel lagu barwaaqaysto sidii hore wax looga bartay wax looga barto insha Allah biidnillah waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo. Yusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London. hoos u dhac ayaa laga dareemayaa qiimaha noocyada kala duwan ee qudaarta la iibsado magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe sida warbixintan oo halka inooga soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Cumar.
halkan waa suuqa qudaarta ee magaalada Jowhar xilligan waxaa socda kala iibsiga khudradda cagaaran qaybaheeda kala duwan taas oo muddooyinkii ayna soo dhaafnay hoos u dhac aad u weyn laga dareemayay xabiibo maxamed cadaawe waxay ka baayac mushtartaa basbaaska iyo liindhanaanta waxay inoo sheegtay in khudradda ay iibsadaan ay u waayaan qofkii iibsada islamarkaana taas beddelkeeda dibadda ay ku qubaan bisbaas iyo liimanka aan kharabtay laakiin tala on hayno mala kubin qaad inuu anjigaan banaanka iskiig daadinoynaayo ganacsataan ah kiilo 10 kun aan ku siinaa 5 4 ku arkaan gadana hadda maba gadma aan raaslim hadda maba gadma xilgaan oo kale wixii qaadta ku ura banaanka sagayno soo daadinay waxa keenay micnaha xamara laga keenay afgooy dhulka soo galaysa joor wax kale maba lahab joor tala ku ma hayna anaka kan afgooy laga keenay qaadna ki joor meeyso ku baara maxamed cali jimcaale waa beeraley tacba dalagyada qudaarta gaar ahaan barbarooniga suuqa ayuu iib keensaday hayeeshee xilligan tacabkiisa uma haysto suuq ama dadkii iibsada waxaana taas uu sabab ugu dhigay in dalagyadii ay beeri jireen iminka laga keeno gobolka Shabeellaha Hoose taasina ayaa jibisa qiimaha dalagyada ay beertaan waxaan ka shaqeeyaa barbarooniga ayaan ka shaqeeyaa waxaan ahay beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe kamid ah ayaan ahay marka barbarooniga ayaan subaxii aan suuqa keena beeraha ay ugu yaala waan ka soo qaadaa suuqan keena waan iibiyaa marka ma sha Allah dadkana way iibsadaan laakiin hadda maalmahan suuqa xogaa waa iska raqiis oo suuqii hawa barbarooniga ayaa ka batay gobolka Shabeellaha Dhexe ma ka badan laakiin bulshada ayaa dadka ay ka keenaan asigoo naga waaweyn barbarooniga ay ka keenaan marka maadaama ay ka keenaan hawaay waa suuqa hawani wali markaas qof wali wixiisa sidoo rabo u gataa waakaasa hadda waxa isbedel oo ka dareemaa maalmaha horta suuqa xogaa xagaay ka jiro xagaay madow ayaa suuq ka jiro dadkii wax ma iibsanayaan waa barbarooniga ka iibina marka dhahdo qofkii waxa waay asigoo barbarooniga u baahan lacag ma haysto marka taas marka dibka keenayso maadaama barbarooniga subaxii uu naga dhamaa jiray hadda laakiin uu noo yaala waxa laga yaabaa kii aan soo gurnay subaxii aan keenay in uu aan maalinta kale ay iibino ayaa laga yaabaa marka suuq xumadaas iska jirto xilligan dalagyadii ugu badnaa ee qudaarta ayaa ka soo go'aya beeraha degmada Jowhar waxaan hoos u dhac weyn uu ku yimid dalagyadii hore loo beeray ee dhanka qudaarta kuwaas oo beeraleyda iyo ganacsatada ay walaacay ka muujinayaan dalagyadii ay beerteen Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar warka dibadda haddii aanu eegno dalka Afghanistan maalinta bari ayaa loo dareerayaa goobaha doorashada madaxtinimada guud ee dalkaasi iyada oo dhinaca kale laga cabsi qabo in weeraro ay dalkaasi hareeyaan dadka reer Afghanistan ayaa bari oo sabtiya u dareeraya dhiibashada codadkooda si ay u doortaan madaxweynaha iyada oo ay jiraan cabsi ku aadan halista rabshado iyo weerar kooxaha Taliban ka imanaya codbixinta ayaa tii afaraad tan iyo markii Taliban ay xukunka ka tuurtay isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka sanadkii 2001 waxayna ku soo beegmaysaa doorashada iyadoo dagaal culus oo u dhaxeeyo kooxda hubeysan ee Taliban iyo ciidamada dawladda kuwaas oo sababay dhimasho dad badan iyo sidoo kale dhaawac dad aad u fara badan iyo dagaalo joogto ah oo hareeyay dalka Afghanistan kooxda Taliban ayaa durbaba ku hanjabtay inay bartilmaameedsanayso dibadbaxyada doorashada iyo xarumaha codbixinta iyadoo toddobaadyadii u dambeeyay ciidamada Mareykanka ee taageera Afghanistan ay sare u qaadeen weerarada cirka iyo dhulka ah ee ay ku beegsanayaan kooxda Taliban iyo saldhigyadooda waagaag daawadayaal waxaa intaa noogu dhamaaday warkii caalamku aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Muqdisho aniga Cumar Xasan Cali oo warka idin soo jeedinay dhammaan saaxiibadii warkayga la qayb galaba daawadayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo muwaadinka sharafta lahow si aan baraaro u gaarno fadlan bixi canshuurta habka canshuur bixintu ma aha mid dhib badan si aad canshuurta u bixiso waxaad u baahan tahay tallaabooyinka soo socda
tag xafiiska kuugu dhow ee canshuuraha si aad u ogaato canshuurta kugu waajibtay ku shub lacagta canshuurta bangiga dhexe ama akoonnada ka furan bangiyada gaarka ah waxaa lagu siinayaa rasiid ay ku caddahay lacagta aad bixisay wasaaradda maaliyaddu waxay hubinaysaa lacagta aad shubtay iyo saxnimadeeda kadibna waxaa lagu siinayaa rasiid lacag qabasho oo caddaynaya inaad bixisay canshuurtii kugu waajibtay muwaadin noqo canshuur bixiye si dalkeennu u hiigsado ummadaha horay u maray saddex kun oo qof waa joogtaa oo dhibaato ku jirto oo isticmaar ku jira oo raashinka laga gooyey dil loogu daray korontohu sii dheer tahay soo wax garta ma hilibkooda qubays la'aan ay tahay isaga go'ay kii dhintay kii aan dhiman soo wax garta ma abugu meeshana waa liibiya abugu qoraxdaas arki maysa weeraan laba sano dad meydka dhexdiisa iska dhex jifanananiin wax garta ma qoraxdaas arki maysa raashin ma jiro wax jiro ma leh halkaa wax ku dhintay dhalinyaro badan ayaa meesha ku dhimatay Soomaaliyeed ayaa ku dhimatay haddana dhalinyaradaas ku dhimatay meesha cid aasaysa ma jirto in yar baa god loo qadiya maadaama meesha ay tahay tahriib tahay isagoo lagu muuqdaa qofka laga soo tagayaa liibiya way iska dhib badan tahay horta magaalooyin badan ayaa dhalinyarada lagu haystaa niyo dhalinyaro saaxiibadaya hadda ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha sida aniga wiil bustahil uu jiro kale Allah naxariistay uu dhintay wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafa uu garaacay